السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز سو دواده aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waa axad waana 6 bisha 7 ee July sanadka 2025. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago sharcigii The Big Beautiful Bill oo madaxweyne Trump ugu magac daray oo labada aqal ay u meel mariyeen sidii uu rabayna ay u noqotay oo jimcihii 4 bisha oo maalinta xorriyadda ku beegneed munaasabad balaaran aqalka cad oo ugu saxiixay ayaan rabaa bal waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira inaan idin la wadaago maxaa dan u ah dadka Soomaalida oo sharcigaasi ku jira ayaan idin la wadaagayaa sidoo kalena dhinaca arrimaha qabqabashada dadka masaafurinta iyo sidoo kale goobaha lagu xirayo meeqa lacaga ayaa ku jirta oo loogu talagalay sharcigaasi ku jirta arrimaha jali tax credit-ka sidoo kale maxaa uga jira arrimahaasi oo idil ayaan idin la wadaagayaa sidoo kalena ninkii Elon Musk oo ninka ugu taajirsan adduunka isaga iyo Trump sharcigan dartiis ay iskula dhaceen saaxiibtinimadoodii waa soo idlaatay waa kii ku hanjabay sharcigan hadii la meel mariyo in uu bilaabayo xisbi siyaasadeed oo cusub haddaba waxa uu sheegay hadda inuu gudagalay bilaabista xisbiga siyaasadeed ee cusub ee Mareykanka oo soo sadeexaynaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo Republikaanka oo waligood wadankan ka jiray xisbigaasi magaca uu bixiyay muxuu yahayna sidoo kale waan idin la wadaagaya daadadkii iyo wabigii fatahaadii ku dhuftay bartamaha gobolka Texas dhimashada oo sii korortay hadda maxay maraysaa waan idin la wadaagaya iyo sidoo kale magaalada Philadelphia oo qashinkii wadooyinka uu buux dhaafiyay maxaa u sababa arrintaasina waa idin la wadaagaya balse marka hore soo sharcigii The Big Beautiful Bill oo labada aqal ee Congress-ka ay toddobaadkii hore meel mariyeen madaxweyne Trumpna uu qalinka ku duugay oo saxiixay maalintii jimcaha aqalka cad munaasabad balaaran uu ku qabtay xitaa diyaaradaha B2-ga oo kuwii goobaha nuclear-ka Iran duqeeyay inta la soo bixiyay aqalka cad ay dul mareen ayaa waxa ku jira waxyaabo fara badan oo muhiim ah sharcigan madaxweyne Trump waa kii saxiixay oo aqalka cad ku saxiixay jimcihii marka waxyaabaha ku jira waxyaabo wanaagsan waa ay ku jiraan waxyaabo aan wanaagsanayn waa ay ku jiraan laakiin dhanka positive-ka ayaan inta badan ka fiirinaya sharcigan marka hore waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay Trump in uu taxi credit oo u sameeyo ma taxi cuts oo u sameeyo inta badan dadka bilyaneerada ah labada xisbi ee dimuqraadiga iyo Republikaanka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah dimuqraadigu markastaba waxay u ololeeyaan dadka maalqabeennada wadanka iyo shirkadaha waaweyn in canshuur laga qaado Republikaankuna canshuur dhaaf ay u sameeyaan shirkadaha waxay leeyihiin wadanka iyaga ayaaba kala wadaba oo dadkii shaqaalaysiinaya warun hadii shirkadaha waaweyn dib loo fiiriyo hadda Walmart oo kale waa shirkada ugu badan ee dad Mareykan ay u shaqeeyaan 1.5 milyan ayaa u shaqeysa marka sida muuqata dadkan maalqabeennada iyaga inta badan loo shaqeeya marka 4 trilyan camal oo canshuur dhaaf ayaa Trump dadka maalqabeennada sharcigan u sameynaya isaga Elon Musk waa ku isku lahayd xitaa markii Elon Musk shirkadihiisa gaar ahaan shirkada gawaarida elektroniga soo saarto canshuur dhaafkii dadka gawaaridiisa iibsado ilaa 7,000 loo sameyn jiray markii uu meesha ka waayay waa kii xildhibaanada u hanjabo uu yiri xildhibaan kasta oo ka soo horjeesto marka doorashada xilliga dhexe la gaaro dhamaadka sanadkan lacag ayaan dul dhigi doonaa oo kursigiisa tartan ayuu galaya dhinacna Trump ayaa uga dhaaranayay xildhibaanada marka waxay noqdeen dharigii labada dhinac ka gubtay dhinac Trump ayaa uga dhaaranaya dhinacna Elon Musk marka dhinacii Trump ay u batay maadaama madaxweynaha wadanka uu yahay ninkana uusan wadanka waxba ka haynin nin ganacsadaya laakiin maalqabeenka ugu weyn u yahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah marka in Trump uu yiri canshuur dhaaf ayaan sameynaya tii 2017 uu dhaqan geliyo oo kale laakiin inta badan dadka dabaqada dhexe wax weyn kama soo gaarayaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah inuu sidoo kale yiri dadka shaqeeya warehouse-da waa bildinada waaweyn dadka ka shaqeeya iyo sidoo kalena dadka iyaguna 1099 ku shaqeysada Uber iyo Lyft iyo maqaayadaha ka shaqeeya ama hoteelada ka shaqeeya in tibka aan wax lacag laga qaado 25,000 wixii ka yar lacagta tibka ee lagu siiyo hadii Uber wada ama Lyft ama maqaayad aad ka shaqeyso 25,000 wixii ka yar wax canshuura dawladda federaalka kaama qaadi doonto inta badan waxaan ognahay dadka Uberada iyo Lyftiga wada lacagaha tibka ee dadka ay qaadaan ay ugu soo daraan in loogu soo diri jiray lacagaha gross income-kooda marka tax return-ka ay xareynayaan marka 25,000 hadii ay ka yartahay tibka lagu siiyay wax canshuura dawladda federaalka kaama qaadi doonto state-ku wixii uu ka qaadayo waa meesheeda sidoo kale dadka overtime ka shaqeeyo warehouse-yada iyo maqaayadaha kale waxaan ogeyn
overtime-ka markaad shaqayso lacag aad u fara badan dowladda federaalka inay kaa jiran jirtay hadda taasi meesha waa ay ka baxaysaa dadka warehousada ka shaqeeya oo lacagaha overtime-ka ay shaqeeyaan dowladda federaalka wax lacaga kama qaadayso stateka laakiin aad degan tahay wixii uu kaa qaadayo iyaduna waa halkeeda dhinaca jali tax credit-ka iyadana waa muhiim caruurta ilmo kasta $2,000 ayaa marka sanadku dhamaado tax return-ka aad xareynaysa lagugu siin jiray hadda Trump waxa uu ku daray $200 oo $2,200 ayay noqon doontaa in ilmo kasta aad ku qaadanayso marka tax return-ka aad xareynayso arrintaasina sidoo kale waa arrin kale oo muhiima dhinaca immigration-ka haddii aan ogo wasaaradda amniga gudaha iyo immigration-ka lacag waxaa la siinayaa 170 bilyan oo loogu talagalay ayaa sharcigan ku jirta marka 46.5 bilyan waxaa loogu talagalay Trump darbiga qabyada ahaa waxadka Mareykanka iyo Mexico ka dhisayay waqtigii hore markii uu madaxweynaha qabyada uga tagay inuu dhameystirayo qabyo ninkeeda iskale marka darbigaas lacagtaas ayuu ku dhameystirayaa iyo sidoo kale waxyaabaha kale expenses-ka ee la xiriir 45 bilyan waxaa loogu talagalay in lagu balaariyo goobaha dadka soo galootiga sharci darrada marka la soo qabto lagu xirayo ayaa 45 bilyan loogu talagalay 30 bilyan waxaa loogu talagalay in lagu shaqaaleysiiyo laguna tababaro ciidamo ICE ilaa iyo 10,000 oo cusub oo ciidamada ICE ayaa la shaqaaleysiinaya marka 30 bilyan ayaa halkaasina loogu talagalay marka Trump waxa uu doonayaa qabqabashada inuu balaariyo sida shalay bartiisa True Social-ka qoraal uu ku soo qorayba uu ku sheegay dhinaca Medicaid-ka iyo sidoo kale food stamps-ka horta Medicaid-ka ilaa iyo dad 10 milyan ka badan ayaa kaarka caafimaadka 10 sano ee soo socda wayn doona laakiin gobol kastaba qayb ayaa uga soo aadaysa arrintaasi faahfaahinteeda wali lama hayo gobol kasta imise qof ayaa kaarka caafimaadka wayn doonta arrintaasi wali lama ogo sharcigan maadaama ku dhawaad 900 page uu yahay in waxa way adkaan doontaa in la ogaado gobol kasta inta ka saameynayso arrintaasi halkaasi ayaan ka gudbiya dhinaca food stamps-ka dadka qaata arrintaasi waa muhiim food stamp-ka dadka qaata waxay noqon doontaa in looga baahnaan doono inay shaqeeyaan da'da loo baahan yahay inay shaqeeyaan markii hore waxay ahayd 18 ilaa iyo 54 ayaa looga baahnaa inay shaqeeyaan si ay kaarkaasi cuntada ay u helaan hadda waa la kordhiyay waxa laga dhigay 18 ilaa iyo 64 marka uu qofku inta u dhaxaysa inay shaqeeyaan ugu yaraan 80 saacadood ayaa laga rabaa ama inay shaqeeyaan ama inay wax bartaan ama inay volunteering sameeyaan mutadawacnimo inay ku shaqeeyaan iyagoo wax lacag aan qaadanayn ama school ama library-ga waxyaabahaas inay ka shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay marka already waxa la leeyahay dadka da'doodu 65 iyo ka hoose 95 boqolkiiba waa ay shaqeynayeen marka waxyaabahaasi waxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee marka la eego dhinaca sharcigan the big beautiful bill oo iyadana dadka saameynaysa waxa la leeyahay 3.4 trilyan ayaa 10 sano ee soo socota sidoo kale deynta dawladda lagu leeyahay sharcigan uu ku dari doona marka waxyaabahaasi ayaa ugu muhiimsan sida hadda jali tax credit-kaas oo kale oo $200 lagu daray food stamp-ka oo la yareynayo Medicaid-ki iyo arrimaha federaalka lacagahaasi dawladda ay doonayso masaafurinta iyo qabqabashada iyo goobaha dadka lagu xirayo in lagu balaariyo ninka Elon Musk ahaa sharcigan dartiis ayay Trump isku la dhaceen marka waa kii yiri haddii sharcigan la meel mariyo xisbi siyaasadeed ayaan dhisayaa marka horeyna waxaan ogeyn inuu afti bartiisa X uu soo geliyo 80% loo codeeyay in xisbi siyaasadeed oo cusub ma sameeyna markii hore yiri ha ayaa la yiri marka sidaas darteed ayaa waxa uu soo qoray qoraalkan uu ku leeyahay laba xisbi ayaa wadankan ka jirto dimuqraadi iyo republican sidaan ognahay marka waxa uu sheegay in xisbi la yiraahdo the American Party oo xisbi siyaasadeed ah uu sameyn doono marka xisbi siyaasadeed in la bilaabo ma fududa laakiin ninka lacag ayuu haystaa ilaa hadda waraaqihii loogu talagalay inuu file gareeyo ama diray lama oga laakiin way ka go'an tahay sida muuqata xisbi siyaasadeed oo cusub inuu sameeyo marka waxa uu tartan la gali doonaa labadan xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka iyadoo aan la ogeyn sida uu ku dhaqan gali doono laakiin isagu kulay ma hogaamin doono dad kale ayuu u dhiibi doonaa dad kuwa madax banaan ayaa jiro qaab independent ah u tartamo oo xitaa labada aqalba ku jiro xubna labada xisbi aan ka tirsanayn laakiin waa markii ugu horeysay hore waa la isugu dayay dhowr jeer in xisbi saddexaad oo siyaasadeed la sameeyo laakiin ma aysan suuragelin laakiin hadda Elon Musk waxa uu leeyahay ugu dambeyntii xisbigaasi siyaasadeed oo cusub waan sameynaya
dhinaca kale daadadkii ku dhuftay bartamaha gobolka Texas oo ilaa iyo gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott in ka badan 15 degmo xaalad degdeg ah uu ku soo rogay dowladda federaalkana ay caawinayso wali in ka badan 400 oo kooxaha gurmadka ayaa baadi goob wadaan waxa la leeyahay 11 gabdhood oo xirada Camp Mystic ku jiray oo gabdho bas kaliya ahayd iyo hal qof oo qaangaar oo iyaguna dadkii meeshaasi ka shaqeynaya ah ilaa hadda dhimashada waxa la xaqiijiyay 59 qof 38 oo dad qaangaar ah iyo sidoo kale 20 caruur ah ayaa la xaqiijiyay dhimashada welina baadi goobku waa uu socdaa iyadoo sidoo kalena wasiirka amniga gudaha Kristi Noemna ay tagtay shalay gobolka Texas si ay dowladda federaalka dhankeeda madaxweyne Trump uu sheegay inuu halkaas u diray si ay u caawiso dadkaasi in gurmadka lagu jiro sida dadkaasi loo soo badbaadin lahaa ugu dambeyntiina magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania qashinkii ayaa wadooyinka buux dhaafiyay muddadii 6 maalmood ee la soo dhaafay arintaasi maxaa sababay shaqaalihii dawladda hoose oo isugu jira kuwii qashinka ururi jiray kuwii numberka 911 marka la soo waco ka jawaabi jiray wadooyinka markay godad yeeshaan kuwii dayac tiri jiray iyo sidoo kalena kuwii baari jiray meydad oo xaqiijiyo sababta uu qofkan u geeriyooday in dhamaantoodba shaqo joojin ay sameeyeen waxay dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo celcelis ahaan groupkan waxa la yiraahdaa DC33 in shaqo joojin ay sameeyeen muddo 6 maalmood ay hadda socotaa sanadkii isku celcelis ahaan $46,000 ay qaataan marka waxay leeyihiin raashinkii ama quutul daruurigii cuntadii way korortay kiradiina waa ay korortay marka lacagtaasi hana loo kordhiyo duqa magaalada Philadelphia haweeneyda la yiraahdo Cheryl Parkerna waxay sheegtay in 13% loo kordhinay laakiin iyaguna waxay leeyihiin waa inagu yartahay sida aad aragtaan qashinkii wadooyinka ayuu buux dhaafiyay lama qaadin muddo 6 maalmood marka mudaharaadkaasi ay wadaan oo waxay leeyihiin hana loo kordhiyo sidaas darteed ayaa qashinku wadooyinka magaalada Philadelphia uu u buux dhaafiyay gobolkaasi Pennsylvania laakiin wada hadal ayaa socdo waxa laga yaabaa in toddobaad ka soo socda ay shaqada ku soo laabtaan qashinkaasi wadooyinka looga qaado dadku waxay leeyihiin wuxuu bilaabay qashinku inuu uro sidaas darteed ayaa hadda dadaal dheeraad ah u socdaa sidii shaqaalahaas shaqada loogu soo celin lahaa dalabaadkoodana loo aqbali lahaa ama ugu yaraan la isugu soo dhawaan lahaa waxyaabaha mushaar kordhinta oo ay dalbanayaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo